لامين يامال mid ka mid ah hibooyinka kubadda cagta kuwada ugu wanaagsan qarnigan aynu ku jirno waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican ee kubadda cagta wuxuu ka soo baxay akademiga La Masia inkastoo noloshiisa gaarka ah ay ku xiran tahay marka la fiiriyo mustaqbalkiisa haddana dhaleeceyn badan ayay warbaahinta ee dusha kaga tuuraan waa 17 jir 18 jir noqon doona laakiin nolosha wuxuu ka bilaabay meesha ugu sareysa lacag fara badan ayuu helay mishaar fara badan guriyo iyo gawaari iyo sidoo kalena gabar saaxiib la oo dalka Argentina u dhalatay oo dalxiis dunida daafeeda uu la aado hadda taan noloshiisa kama hadleeno ee qodobka aan ka hadlayno waxay tahay in madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Paris uu yiri geed kor iyo geed hoosaba waxaan wacad ku marayaa inaan kooxdan keeni doono waa Paris Saint-Germain ciyaaryahan Lamine Yamal ogow markaan kooxda Paris ka hadlayno waa koox ay iska leeyihiin dadka dunida ugu qaalisan dawladda Qatar Nasser Al Khalifa oo wakiil ugu yahay koox 10 sano ugu dambeysay mashaariic bilyanisa lagu maalgeliyay in 230 milyan ay ka bixiyaan ilaa 250 milyan oo dollar waa u qalmaa Lamine Yamal waayo waa ciyaartoy 20 sano ku ciyaari kara haddii uu caafimaadkiisa taam u ahaado hadaba dalabkan kooxda kubadda cagta ee Barcelona loo soo jeediyay ee ku aadan soo dhiiba Lamine Yamal ee jeegan lacag ku qorta u maleemayo inay diidi doonaan inay ku qamaari doonaan way waxaan ognahay sunta dhaqaale ee kooxda Barcelona in sagxadu ay tagtay soo kabashan ay u baahan yihiin 230 milyan kab dhaqaale oo weyn ay u noqon doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona moobilkaaga ka daawo ciyaaro iyo filimaan adigoo adeegsanaya abka Daawo TV fadlan la xiriir lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda